بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا وحبيبنا محمد عليه الصلاة والسلام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. guud ahaan asxaabta barteedan ku xidhan pageka iyo kuwa nagala socdo dhinaca youtube-ka waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. dhib ma lahaa dadka kolley runtii qaar mar dambe soo galaan anna waqtigan jaanis salon baa soo galaa live-ka maasha allah. horta marka koowaad waxaan halkan uga tacsiyadeynayaa wasiirka arrimaha gudaha ee somaliland iyo guud ahaan somaliland oo dhanba oo hooyadii ay xalayto geeriyootay indhadeeq. waxaan leeyahay allaha raxmaanka jannooyinkiisa saraha ugu deeqo iyadiyo dhammaan muslimiintii geeriyooday oo dhan. innagana ilaahay inooga daba naxariisto. maamo qiimo badan bay ahayd oo geesiyin fara badan dhashay. dabcan dadku de maxamedka ahayn unbay yaqaanaan, rag kaloo macaa halgankii ku geeriyooday cadaawo iyo lahaa ayaa ka mid ahaa. waxaan leeyahay waqtigeedii kulli nafsin daaqiatulmowt waan u tacsiyadeynaya. taas waa qodob. barnaamijka kale wuxuu ku saabsan yahay waxaa jira horta waxaa qurux badan in runta la dul istaago. runta inta badan waxaad moodaa inay dadku iska jecelyihiin arrimaha ikhyaaliga ku dhisan, ikhyaaliga ku beys garaysan, ama waxyaabaha aan hirgalayn de iska uun kutrikuteen iyo waxaasaasoo had iyo jeer dadkeenu cadiifada ay ka helaan waxyaabaha iska cadiifiga. laakiin waxyaaba xaqiiqooyinka way isdiidsiiyeen duniduna. laakiin dunidu si xaqiiqooyinka ay wajahdaa waa waxa soomaalida la hadhay. aan odhan karo weliba qolada xagga iminka koonfur joogta oo booxa la hadhayba. haatan waxaynu maqlaynaa maalmahan o dhan isi soo tarayay marba farmaajo oo marba odayaal soo dhaqaaqsanaya oo waan wada hadlaynaa iyo arrimo noocaas. bal horta intaynaan somaliland ba u daadeginba, somaliland iyo wada hadalkeediiy waxaaba intaynaan u daadegin waxay isweydiin mudan soomaali muqdisho ma midaysanta? inta dowladda federaalka hoos tagta iyo dowlad goboleedyadu ma midaysan yihiin? waa maya. kismaayo iyo muqdisho ma midaysan yihin? sokan macal aan falaytkii ka hor istaagay. meesha la yidhaahdo muqdisho iyo allah mustacaan puntland ma midaysan yihiin oo siyaasadda ma ku midaysan yihin oo farmaajo ma mideeyey oo dib heshiisiin ma u sameeyey? waa maya. amniga ma sameeyey? waa maya. muqdisho iyo jawhar iyo balcad nabadgelyo ma loogu tagaa? waa kuwa xildhibaanadii ka soo jeeday hadlaya dadko maykhiyaali baa laydin daaraa filin kartoon bayn weligin ku jiran. weliba dadkaa koonfurtaan la hadlaya. war xildhibaanadii laga soo doortay baan awoodi karin oo tahli karin iyagoo gaadhigooda wata oo nabadgelyo ku socda inay tagaan from muqdisho to jawhar oo wax yar isu jira. waxaa damiir xumaa haddaba oo raba inuu dadka caqligooda ku ciyaaro. nin aqoon-yahan sheeganaya kule in dheergarad baan sheeganaya oo intuu muqdisho soo fadhiistay ama halkaas oo hadduu doono beeshan aan kasoo jeedabaaba oo ama isaaqaba ila meel kastaba imikadan bay dadkan oo dhan baa wada wareersanay oo halkaa kule soomaali baa la midaynayaa oo horta maxaad midaysaa? meeshii uu joogay qofku markuu meesha uu joogo horta wax ka taro ayuu meel kale u tallaabi karaa. somaliland baa la raadinayaa oo somaliland maxaa waqtigan farmaajo sanadkii ugu dambeeyay ku jira waqtigiisa u dhammaaday. somaliland dagaal toosa buu la galay oo ah fogeyn isagoon waxbana awood muxuu kororsaday? wax aan xumaan ahayn muu kororsan. intuu ismahadiyey oo bartan facebook ka qayliyey oo uu dhammaan wax allaalo wixii fikradda soomaali hore ugu duntay qabay ee fikradda dictatorshipka ah ee iswaalwaalka ah oo dhan intuu mediahana saa ugu soo daadiyey iyo wada yesman qaar somaliland ka soo jeeda qaarka kale oo ducufo ah. waayo qofku markuu damiirkiisu dhintay uu runta iyo kala garan kari waayo iyo beenta. anu waxaan u aqaanaa qof damiirkiisu dhintay. qofku waxa wanaagsan ilaahay baa rasiqa bixiya. allah raxmaankaabaa wax kastaba qoray. maalinta dhimanaysid waxaad helaysid waxaad cunaysid. qabiilku big deal maaha, laakiin qabiilkaagu waa inay ku qabtaan maaha inay khaladku ugu taageeraan. way wanaagsantahay qofku waa la tacaarufo qabiilada sukar. kooxdaasuu meesha dhintay. maanta odayaal baa hadlay. odayaashaas aan weydiinaya idinkaa kasii liita farmaajo. isagu ninkaas weeyaan bare dee nin waxaa la yidhi nin aan baday meeshuu aaday way walo ekaata. waa ninkii intaas oo sano laga baryayey. war iskaba daaba anigu aan ka baryay xitaa aniga ganacsanaana iyo ummadda dee caqliga fayow ee ka nadiifta aragtida gaaban ee soomaali la hadhay ee reeraysan ee iska qof iskaga
sax iyo khaladba ku taageera dadka ka nadiifta war iskabadaa Somaliland horta ma walaalaysay qulubtooda beelaha koonfur kuwa muqdisho degan ee la dagaalamaysid ee la aflagaadeenayo ee lacag ku shata ku doortaa shata ku lahaa afrmaajayge sotan la aflagaadeenayo qof afka ku hadlay aflagaadeenayo oo toos nabadii nolosha hayo madaxtooyada ka amar qaato oo aan laga joojin meel la midii waa maya ko Soomaalida horta ma midaysan marka Somaliland bil laga yimaado midnimadu ma khiyaali baa wax iska ora haddaan iska hadlaydo waan iska hadlaya anigu cabsanayn imika haddaan doono waan iskala keen hadlayaa madaxweynahan ahay waxaan haddaan doono oranayaa iminka ilan waan iska hadlaya ilan iska hadal bay wadaan beesha caalamka bana waa aniga caalamka ugu sarreemaysta Francisco beesha caalamkana anaaba beesha caalamka oo saas la iskaga hadlaya muut waxa sudee wax ka kordhayaan ma dadkuna aad qulux kama yelbo waxa Soomaali kasta loogu soo celinaya maalin kasta way dhageysanaya ma midaysan 4.5 ku qabsadaan maxaa tidin raxweyn madaxweyne noqoto mana ogolo imkana qorshaha loogu jiro gabooyaha maxaa madaxweyne loogu dhigay dirka koonfurta maxaa madaxweyne loogu diiday way bay dirku madaxweyne noqon dad ahaan ma midaysna deegaan ahaan ma midaysna amni ma haystaan aqli ma hayaan haddana meel kale oo reer Somaliland way ka gudbeen dabcan axsaabtooda ama ha u xumaateen qofku wixii laga macaaye nidaam axsaab bay u gudbeen oo axsaab isku doortaan alliance waa wax horeeyda beelaha qaar way isbahaysteen dunida oo dhan bay ka dhacday goboladan iyo gobol kale isbahaysan kara dunidan way ka jirtaa haybaha oo kale waxa daarad laakiin adigu waxa taagan tahay odayganow iyo qofkan midnimada uu ka hadlayo maxaad midnimada wad iska riyoonaysaa horta seexo markaa kadib baad riyoonaysaa haatan waqtigan ma waqti laga hadlaaba inaan meeshan aqal oo wax garanaysaa ninkan 3 sano Soomaali kale firdhiyay ee aan Kismaayo iyo is arki karin Muqdisho horta intuu waxa bay iska daayo horta haba ku dambaysay Axmed Madoobe muxuu la heshin waay Axmed Maxamed Islaam calankan ay Soomaalinimada u haystaan la calanku waa maray Soomaalinimadu calanka ka horbeejtay way buu la heshin waay waa uu la aaminsan karta oo soo aragtidaas buu la qabaa ma balahaba Somaliland waa bay halkaas banaanka ay marto waxa leeyahay ornku ma calankii hore geestidiin kaba tagnay bay qaatabe Axmed Maxamed Islaam lama heshin Puntland way sastaano lama heshin dib heshiisna ma samayn Muqdisho gudaheeda amnigeeda waxba kama qaban waxaas oo dhanba hadana rag waa weyn oo odayaala qofku markuu garashada saboolka ah marka qofku garashadu dhimato wuxuu doonaa iska hadlay ay halkaas soo fadhiisan si kulay wallahi Soomaali midnimadeedu waa muqaddas Soomaali ma kala soo kala tagi hor Djibouti soo qabo waa Soomaaliye horta magaca Soomaali weyn dadka qaar waxaan rabaa inaan kuwa juhulada ku soo gabado Soomaali weyn Muqdisho iyo Hargeysa la yiraahdo Soomaali weyn Muqdisho Hargeysa lama yiraahdo Djibouti bay ku jirtay Djibouti waa kaas balka dhaadhici ninka Djibouti halkan dadkooda imika waxa bay nugu dhaxtaa Soomaaliya banihin Djibouti bay qoraan taas soo hadlayaan afar iyo Djibouti baa degan oo ku barta kaaso mangabo ka adiga tuuray oo fogay halkaas uu isna iska tagay oo markii de labadiiba ay kooxda xagga Talyaaniga gumeystay ee aan aragtidoodu koraynin markay iska hadleen arkeen bay dhahdeen war naga taa ku darsaday Somaliland British Protectorate mashaakil bay kala kulmeen waa kii abwaan kala taariikhdana ma baaraan taariikhda dad baadhan ma waniga maanta warmaan naas kan la soo maxay nimankan waxa aqliga ka qaaday ma odayga weyn iska hadlay waxay waqooyi waxay wala weyn baday Djibouti ka waaranaysa in abwaana baa lahaa malaa oo sugayaha Faisal Umar Mushtiq baa loo jiray ma baadhaan taariikhdoodu waxay ka soo bilaabantaa 9 ummaduna hadaan qofku taariikhda aqoon oo research samay imka warqadaas waxa ku qoran tusaalahan halka waxba kaga qoran xayan kale marka uu rugtino wax kala kaga qoran gebigoodaba hal page bay akhristaan wa halka page maxay ku duntay maxaa Soomaalinimadii dumiyay Soomaalinimadu ma Muqdisho iyo Hargeysa ma aha waa sinji Soomaalinimadu ninka gaarisa jooga waa Soomaali Kenya ka mid noqday waa kaas hawshiisu isku taag waxa la isku hayaa Soomaalinimo ma Soomaalinimadu waa sida Carabta oo kale waxaan la isku hayaa war waxba mooday karba markii hore laba gumeysteen kala haynba kala gumeysi ka soo kala deegaan baynu hayn dad waxba isku darsan kareen markay isku darsanayna waa isku baabaan aqligii ay isku baabaanay baanad ilaa maanta dabada haysan waa aqliga oranay iyadoo maanta Muqdisho aan amni ka jirin oo ay Muqdisho ololeyso oo jaan everyday hortiisa qarax ka dhacaya oo aanu halka waxba ka qaban
oo aanu bulshada u samaynin arrimihii aasaasiga ahaa ee bulshadu hadday tahay caafimaadkii farmaajo muxuu ka qabtay xukuumaddiisu maxay ka qabatay amni baa ugu horreeya wax kastaba iimaankaaba amni xataa cibaadada diinta la qoray amni baa ugu horreeya amnigu ku fashilmo waxba kama qaban muqdisho waa kuwa maalin kastaba beenmada ma soconayso waxbarashada muxuu ka qabtay caafimaadka muxuu ka qabtay biyaha muxuu ka qabtay ummadda quluubtooda muxuu ka qabtay muqdishoba degan halka yar uu fadhiyo askar amisona ma ilaalisa amnigiisa gacantaasaa looga haya waa maxmiyad isagaa imikadan maxmiyadaba maxmiyadii somaliland oo kale markii ingiriisku noo yimi protectorate iyo colonize are different protectorate waxa weeyaan waa maxmiyad oo kale ingiriisku wuu ilaalinayay somaliland dushaasu ka ilaalinayay badaha iyo strategy dhulkaasu ka ilaalinayay colonized maahan gudaha toos uma soo iminka isagu right now buu maxmiyadii haddii aad rabtona farmaajo lala kulmo waxa sii baadhaya oo ciidanka ilaaladiisu waxa weeyaan african peacekeepers waa niman ka socda united nations ogyiin oo afrikaan ahoo ilaalinaya ninkii nooca aha ka sii liitaa waxa weeyaan ka intuu soo fadhiisto odhanaya somaliland baa lala hadlayaa waradar taymkiisa u dhammaaday wadahadalkana anigoo cabsaana ayaa anaa idinka idinla hadlaya somaliland caqli garasho iskaga lumin mayso anigoo cabsanaana baa idinla doodaya meel kastoo lagu wada hadlayana anigaa imanaya wax farmaajoon la hadlaynana ma jirto isaga ayaana intaas oo wax baanan haya oo ummadda soomaaliyeed ku kala dilay oo uu qabyaalad isku ururiyey oo dictaatorintii dhiigii cabka ahaa ee adeerkii maxamed saad barre la shaqayn jiray oo hadduu yahay ibraahim madaxi hadduu yahay odaygan maanta uu wada hadalka ku soo daray ee la odhan jiray guulwade hadduu yahay allahu mustacaan ka uu ka dhigtay isagana waxa la ku xeeran oo dhani waa kuwii soomaali kala geeyey qorshaha quree uu wataana waan ognay ibraahim madaxi waan aqaanay shoodhihiisa kuwan kanada jooga siduu wuxu boobi lahaa umuu iman ninkani inuu midnimo iyo dibi heshiisin goormay dibi heshiisintii ay dhacaysaa qofka marka naftu dhuunta ay joogto dee waxba lagama aqbalo qorax duna hadday marka ugu dambaysa xagga galbeed aado dee waa raafic waqtigiisu wuxuu ku dhammaa la dagaalan ninka aragti duwana oo yidhahda weliba social media kala dagaalama waa falsafadan imika inagu soo kordhaan haddaan siyaasaba social media waan ka xanaaqa waayo qofkan inaanu meel fog gaadhayn baan ogi qofkan social mediaha wax ku bixinaya kharash ku bixinaya dhaqaalaha ku bixinaya war cabdiraxmaan cabdishakuur buu la heshiin kari waaye cabdiraxmaan cabdishakuur waa nin siyaasi ah waa nin isagu qaba fikirka uu isaguna qabo laakiin isaga ka aragti duwan muxuu ula heshiin waaye bal had wax kale ba iska daayo dagaal baaba ku qaadaya wax kale intuu awood kale intuu kari waaye xitaa ayuu waa ninka yidhi markii puntland madaxweynahan la caleema saarayay cabdiraxmaan cabdishakuur hadduu halkan soo fadhiisto oo uu hadlayo meeshaba tegiba maayaba oo uu gobonimada soo qaato war ha yimaado ninka aan weer sugna waranima sugo markaasaa somaliland hor fadhiisan kara oo la hadli kara anigaa laysoo diray anigaa somaliland matala anigoo cabsanaan jitalmaana noocaana annagaa la sheekaysanan odayaal asaasi qabay soo dirano maanta inta bartaas ka soo fadhiistay haddaad caqli leediin odayaashaasow maydaan soo qaadateen aragtida ah farmaajona maanta xukmiydaan dhegeysteen oo 3 sano ku dhammaystay cadaawad cusub oo aan loo baahnayn oo tii Soomaali ay ku kala dhaqaaqday idinku waxa tirsataan 1991 qoliyadina koonfurta oo markaas dawladdu dunti baa tahay anuu haddaan noo reer Soomaaliland 70-yadii baa wax naga khaldamay 70-gii baa dulmigu nagu socday iyo intii ka soo horeysayba oo dictator aan madaxa isla galan oo abwaankeygii suugaanyahankeygii ma iyaga khaldana dhamaantood way saxsaneen aynu isla tagnay taas waa qodobka labaad ee kale oo waa nimanka warada Jubaland baa idinka baahan iyo isaga inay heshiisaan Somaliland iyo wadahadal waxa idinka baahan inaad farmaajo iyo Axmed Madoobe hadda caqli leedihiin oo garasho leedihiin labada wada hadalsiisaan oo dabadna kuwa heshiisaan oo madaxweynaha isna kan Puntland haysta Saciid Cabdilaahi Dan iyo farmaajo wada hadalsiisaan oo argaxisadan ku dhex milayhiin Fahad Yaasin iyo isagoo ay la wada shaqeystaan la kala saaro nidaamkiina dawliga ah iyo sirdoonkiina ku shabakaysan ee migiska ku noqday ku dhex jira al-shabaab waxa saayidin baahan ina gurigiina hagaajisaan waana aragti gaab waxay ku oranayaan wan oogay ma qaadanayaan mawta wana ku xigmad gure waxay ku oranayaan
ما meel xun buu yimiyo muxuu ka qaban karaa dhabdahaas kaga tago hees casilo ilaan dukaan maaha meesha ninka markaan horaan waan idinku dooqa u sheegi jiray haddaan gurigeygana imka uskaga aan imaado uskaga markaan ugu imaado ama uu qabyo bay yahay ama wax ka dhimayn dawaan wax hagaajiya haddii awoodeeda ka baxdana waa inaan iskaga tagaa ama waa in dembigii anigu aan qaataa ila meesha aniga anaa waxaan dembigii iminka dembiga way ka duwaan farmaajo hadee jeer kuwan la taliyaalno dawa macaangagiine ee aragtida khaldan leh warninkani wuu fashilmay waxaanu ku fashilmay xilkii Soomaali dhaartuu dhaartay iyo wixii dhan way beenoobay mana aha aniga oo kale taa aniga oo kale qaaras mas'uuliyad buu qaatay kitaab buu ku dhaartay dib u heshiisiin buu dhaartay ummadeenu wuxuu qabanay haddii aan waxba u qabanin inuu iscasilayo gaadhibaan dabadiisa ka boodaya wixii meeday maalinta tabaagtiisa qarax ka dhacaya al-shabaab intaa waxbay ka qabsanaysaa halkii hore kaba soo goratayba meesha hada been bay ku nooliin social media iyo xasinimo taas wata waxaan leeyahay wax wada hadal oo aan la galaynaa ma jirto hana ka yaabina wax wada hadalna ma dhacayaan xilliga wada hadal ku dhamaaday taas waa halkaasaan dhigay arrinan hore uga digi jiray oo aan hore dadka uga digay aan lana socday oo maanta iyadana la arkay waliba dadku sidii moodayaan si ka gedisan bay arrintaas noqonaysaa meydadka yaala airportka muqdisho ee aadan cadde international airport ee ay qarinayaan waxay ku sheegeen reer hiiraan waxa dhici karta ciyaalkan reer Soomaaliland ee meelahan ka iyo ummadda ay waalan oo dhan inay ku jiraan dhalinyarada inta Eritrea la geeyay baa leeyahay waxba la soo tabarayaa kooxdan argixisada baa qaadatay Eritrea iyo wax xogtaan idinsinaya Eritrea iyo sideedaba dawladda Qatar ahda waa ku isku dhacay iyaguna Qatar buu Fahad Yaasiin kan ku xidhay cuntadii baa laga jaray kuwa joogaan iminka ku soo baxtiyaan markii ay cunto waayeen ee gaajoodeen bay gadoodeen Eritrean askar ah ay meel xero ay ku jireen tababarka lagu siinay ay isku dhaceen kibigooda bar rasaas kala dhaceen wanaga taga meedkoodii bay soo qaateen meedkoodii wana si daro ana waxaan leeyahay hooyooyinka iyo waalidada gaar ahaan reer Soomaaliland waxaan leeyahay wardadkina halka aan ka dhiman horna waan idinka sheegay ku barnaamij baa jira dhalinyaradan ay waalaan qaar badan xitaa qaar baa al-shabaab isu dhiibay oo inta Hargeysa iyo Burco waxaaga war shaarkaaga duuga wakiilha abwaankii loo dhin jiray Allahu naxariiste Ibrahim Garle shaarkaaga duuga yaanu damacu ka furin xariirta dukaan kale indhaha daawo kugu yidhi iyaga dambiila anu tago aniga xadaas la cadsan war magac baan ka rabin anigu aragtidu ma aha aragti Facebook iyo qof baa ku daawo halkan ku soo qoran doesn't make sense kun jeer baa halka telefoonada haddii ay waxaan ku taageeray wax sawir waxaan waxbay mana qabanayaan bal hore aan arkay inay meesha ruwaad iyo khiyaali ku hayaan iyo maafiyo sheeka maafiyo waxa hadaba ugu daran kan nabadgelyada haysta ee hooyadii nabadgelyada haysta ee alxamdulillah rabbil caalamiin ku jira ilaahay baa rasiqa bixiya haddaad deexitaa aad meelaha kale meel dhaantaaba la aadaaba meesha adigu ka tagtay meel dhaantaba ayaba la aadaaba ee Hargeysa iyo Burco iyo Boorame iyo Laascaanood iyo Ceere Gaaba iyo Soomaaliland oo dhan jooga ee halka loo gacan haadiyo dawladda la qaaday Eritrea ciidan la geeyay ku soo gaajoonay halka ee lagu soo tuuray bartaas xal mukiim Muqdisho jooga wuxuu qabto marka adiga wax ku qabanayo Hargeysa iyo Burco iyo Hargeysa berberej haysta oo reer Soomaaliland muddo marka umulaya halka wadooyinkii laga xidhay ee reer Muqdisho uu ka qaado wadooyinkan uu ka xidhay waxa ka horyaal hadduu nin ummadu turayo yahay ummadu wuxuu qabanaya ama muxilka iskaga dego oo hadaan ahayn dhun raac taas waxaan leeyahay taasna deedinkeedin taala dhalinyarada anigu in badan baan ka digay qodobka labaad ee kale waxa weeyaan waa hambaliyanayo heshiiska aanu duceynayo ceelaf weyn safkaradka ceelaf weyn ka dhacay hadda ka horna ma sha Allah si wanaagsan bay hawshu u socotay ceelaf weyn caarana arrintiisu way dhamaanaysaa oo ku xigtay noqonaysaa waan arkay kuwi jeclaa xumaanta iyo in dadku islaayaan hadii jeer oo durtaba halka ku soo qoray Deex Midoobaad baa dhacay idinka Deex Midoobaad idin ku dhacay kun qurbaha ka qayliye dadkii ay dalkii kaga yimaadeen maaniga hooyada iyo dadkayga iyo weligii xitaa maan oran aragtida qaar dadku ay ugu shaambadayaan warishaaqo islaaya maan oran reer Soomaaliland uu isdila maan oran aragti midnimo baa ka jirtaasuna caqliba halka ma jiraba ونمك إلا إمك ذا ريانا يهيدا كشرة تتبع واحد شرا قربها هنشوجة هو وين حتى والله مد بان هكذا دين صدق دارا أو هكذا كسر شيء ده ديجان كان وربنا كده ديجان كان كسر شيء ده الرجال السنة جاي ولي بكسر شيء ده إن لبدا هيبود هكذا سكول لايا هكذا كسر قرية ده أحمد بعد بعد عيها ده عيدا كلا صاحر أيوه إن لا قرمايو عيدا كعاره
caarana lasoo qabto deex madoobaad ayaa dhacaya dee adigaa waxaad waayaysaa waxaad urursan jirtay ee dhiigga ummaddaad ku macaashi jirtay inay ummaddu islayso oo dadku isdilaan inan iyo abtigii beelaha halkaa wada degan habar lamaan baa la isku dhahdaa sacad yunis iyo baho ramankiis dili jiray dhibaatooyinkooda dibadda inta badan laga waday waxay ahayd wax diinta islaamka xitaa ku xunbay damiirkuna uu diidayo sodog iyo seediya abti iyo inanba isku ahay maasha allah arrintoodii waxaan leenahay ilaahay heshiis waara oo sidoodii hore ay ku noqdaan awal horeba waa lala ahaana bartaas soo deganaan jireen weligoodba ilaahay sidoodii hore ku soo celiyo taasuna waxa weeyaan waa alxamdulillahi rabbil caalamiin waa maasha allah qodobka ugu dambeeya ee aan dadka had iyo jeer iska jibaysan ee yidhaahda somaliland oo qura u muuqato aan tusayo macallin reer somaliland laftigeeda aan raba inaan tuso war markanay leeyihiin cadaalad horta marka cadaalad iyo sinaan timaadaba midnimada ma timaada 4.5 wax la hadabay wax ku qaybsadaan weliba iminkay kusii talagalayaan inay 4.5 oo reer jaamac reer hibelow de labada garanaysan labadan isu dhiiba meesha reer qansax warayso saara qaada reer quraacawna madaxweynaha qaada bal ha laga helo raxan weyn soo raxan weyn ma aha boontiyada qayb ka mid ah oo wax soo dir ka mid ah dirkuna meel warada kuwaad marba ninkii la odhan jiray professor hebel samater inta badan dadaali jiray maxaa ku dhacay 8 cod bay soo siiyeen hadigu wuxuu maroodigu tagarta saara markii maroodiga kale war midnimada idinka u baahan inay idinku gudihiina midnimada u baahan inay idinku midowdaan idinka u baahan inaa midnimada 4.5 kana waxaan ka tagtaan iyo hebel baa maantana madaxweyne noqonaya berina ra'iisul wasaare noqonaya dadka aad dulmiyeysaan ee idinku iyo gudla jooga kuwa xilalka wax ka siiya oo midnimada iyo caqliga oo axsaabna uma gudbi kartaan hadalkiina maantana waa ka runta sheegay odagaas lahaa Soomaaliland oo maqan Soomaaliya waxba noqon karto war anoo ku idinka maqan bay waxba noqon karin ma noqon ba kartaan way caqli baydaan hayninba saako noqotaan ma imka noqotaan taas weligiin ba qeyriya anu halka nabadaas alxamdulillaah rabbil caalamiin bulshada reer Soomaaliland way taqaanaa say nabadooda ilaashto arrimaha yareena dhex yaalana way iska soo afjarmaan tayadu waa iska arrin cadaawadna ma waa arrimaan ku kala degdegsanaan aakhirka meel bana sugu nimaado dib u heshiisiinteedana waa maqan waa taa maanta dib u heshiisiintaan soo idinku horta heshiiye inta anaga ma soo talaabin aad iyo aad waan walaaliin salaamaya guliyo gobonimo aniga runtii tacsida kala maxamed kaahin axmedna waxaan leeyahay kullu nafsin daqiiqatul mawt wala wada dhimanaya dhamaantiinba ilaahay samriye iimaan adiga iyo family-ga iyo dhammaan reerka oo dhan iyo reer Soomaaliland ba ilaahay samriye iimaan ka siiyo qolada halka ka hadlaysana waxaan leeyahay aqligu ha shaqeeyo qoladina muqdisho ka hadlayso iyo odayaashina waaweyn hunguri raaxa noqonina xaqiiqada reality-ga ku soo dhawaada ina iska hadashaan macnaheedu sameynayso farmaajina waqtigiisa uu dhamaaday waqtigiisana wuxuu ku dhamaaday fashil 1 kilometer oo muqdisho waxa silin kara waay waxba Facebook iyo buurada wada doesn't make sense wax macnaheedu sameynayso xaqiiqada reality-ga soo dhawaada dunida run bay ku wada socotaa run bay ku nooshay ummadeena waxa la haraxday jeer qofku inuu runta iska sheego wax mudane inuu qaadato oo gaalada wad mudaaba inay qaadatayba haddii muslimkan waliba muslimka oo dhan ma aha Soomaalida way qofku naftiisa oo dhan mu beeno sheegaya waxaan haystaa dhaqaale kan ugu kala qaar baa halkan ka qeybgalay dhahda war dhaqaalana ma haysto cidna lacag kama qaato horena uma haysan jirna faqiir baan aragtidan ku socdaa aragtideedan dee u arka tasax runtana wajaha runta xaqiiqadan wajaha been kuma noolaan karo dee been ma dhageysan karaba intaas oo sana been la idin sheegaya oo baaba ruuxba ma jiraanba Soomaaliland laakiin xaqiiq nabadgelyo jirta gaarigaad ka soo raacday halka ugu tukarraq ilaa meesha la hada boorame ama lawiyacdo iyo ilaa ka wajaale amni alxamdulillaah rabbil caalamiin tugba taagtibu rugmada dadkaas waxay haystaan ka horta amni way marka amnigu yimaadad waxbarashada dhalinyaradii reer Soomaaliland jaamacadaha ka baxay dunida macaa ka shaqeeyaan Hargeysa iyo Burco iyo Boorame iyo Camuud iyo ka baxay idinka yimaado Camuud yimaado waxa soo dhani iskama dhicin waa wax la yiraahdo alxamdulillaah rabbil caalamiin ilaahay ha u siyaadiyo inta haystaana ka badan waxaad haysatid baana wax ku ah qof kasta wuxuu haystaba waxa qof aan raba inuu ummadii wax haysatina wuxuu idina ka baabay isaguna aan waxba tarayn qofka dhageysta ka silita ka dhageysanaya ba ka silita aad baan idin salaamaya wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu soo Soomaaliland waxaan kaga tagayaa isku duubni guud oo ah danta guud in la wada ilaaliyo
ولا دعوين يا دنت جود هذا يشر أنا يرادنا وحن كوجا بجبيني أو باقي ولي بكون قربات شو نمي هو قبيلة باس كداي يا قفك صورنا أنا قفك استوى شام بدنا سان ميت كان نور إنه كتر ياهي صورنا قفك استوى سيدنا دو فكري ساقف كأكل نو فكري حتى دو سيو فكرتي أنا وحلا جاي أنا صادو فكري سميت كجدي سنة نو فكري حلا جاي روح العنصر واحد كجدي سنة أنا وتسين الدنيا ده حتى عرضنا نمي حتى عرضنا سكول يونيفرسيتي وحابة آدن environment هي deegaanku saameyn buu kugu yeelanaysa dadkan u noolyihin maaha inaad qolkii un ku jirto afras garanaysaan ilmaadartiin oo tolliimeed iyo dadka miyagaa tolliimeba yaqaana dan baa isu keento dan baa isku raacaan waxaad arkaysaa guri ama meel ay wada degan yihiin jewish allahu mustacaan kristaan muslim danta caamka ah horumaradana lagama hor yimaado securitygeena iyo nabadgelyadeena iyo amnigeennana iyaynaan ku duminin qof jeclaysi وليبا تدك دلك إني شو جينا وقبل ما بنحسنا الحمد لله رب العالمين مركات هاي سكيل عليها بان هاي عدد بان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته